Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Araksan VIP. Welcome to my channel. Maanta waxaan ka hadlaynaa guurka xun. Guurka xun maxaa keenay? Maxaas kalifay in uu qofkii aad shalay isguursateen inuu maanta isbedelo uu qof kala noqdo. Gabadha ma dareemi karto, laakiin guurka markuu xumaanayo saddex marxaladood, saddex step uu noqdaa. Stepka koobaad oo ah in uu guurka isku bedelo laba qofood aanan meel isla joogi karin oo is arki karin oo is caynayaan oo wax iska sheegayaan inuu noqdo waa marxaladda koobaad oo hadal xumo iyo dhaga hadal iyo ciyaal suuqnimo oo isku bedelo oo qofka kale uu is arki karin. Marxaladda labaad oo tagto in gacan la isku qaado oo qofka kale ku boodo ama la isdilo oo heer in nacam sidii laba qofood cadow ah camal la isku soo boodo inuu noqdo. Heerka saddexaad uu ah waa heerka ugu xun in labada qof ay meel xun lagu dhufto ama naftiisa la dhaafiyo. markaas waa heerkii saddexaad ayuu gaaray guurkaasi. waxa uu keenayaa ama geeri uu keenayaa ama wuxuu keenayaa qofka xubin muhiim ah jirkiisa inuu waayo ama maskaxiyan totally maskaxiyan in uu qofkii maskaxda labada qof kamida uu maskaxdi eber ka noqdo oo isku dardarsamo oo la yiraahdo naagtaan ninkeedii waalay ama ninkaan naagtiisii waashay uu nolol aanan dhicin aanan nooleen uu qofka iskaga noolaado. marka saddexdaas arrin intuusan guurka gaarin maxaa ka horeeyo oo sababay waaye waxyaabo badanaa sababay. Mostly gabadha markii gabadha la korinayo gabadhii oo lagu soo barbaariyay laba nolol. gabdhaha Soomaalida labay ku soo koraan. gabar waxay ku soo koraysaa actually aan dhaho saddex nolol ay gabdhaha Soomaalida ku soo koraan. gabari waa gabar la soo batraamiyay oo hooyadeed soo suuraysay oo maxaa la yiraahdaa firaash xariir loo soo guglay oo nolosheedii maxaa la yiraahdaa dib iyo qalad laga soo ilaaliyo iyadoo toosan saas ay ku gaartay 18 sano ilaa 20 sano. gabarna hooyadeedii aabaheed midna maba soo korsaninba nolol iska daciifa ayay ku soo kortay iyo nolol nacayb ah ama nolol yeesitaan ah ama haddii si walba loogu roonaado qofka hooyadiisna lama noqon karo aabihiisna lama noqon karo ay dareemaysa nacam qayb kamida nolosheeda inay ay laadahay ay raadin iyo jacayl iyo maxaa la yiraahdaa baadi goob ay ku jirto. gabarna waa gabadhaas. gabarna waxay ku soo kortay khayla iyo dhaga hadal iyo ul iyo maxaa la yiraahdaa iyo cirdays ayay ku soo wanaagtay iyadoo sidii u ordayso ayay guur dalaq dhahaysaa marka oo xaafadeediiba ka soo baxsatayba maba ahanba gabar maxaa la yiraahdaa even xataa hadii laga soo doonto la guursado ma ay ahayn gabar isku kalsoon ama dhisneed markeedii horeba xagga nolosha. okay maxaa gabdhaha noocaas marka mid la soo badraamiye iska daa adduun iyo aakhir meel ay qabsan karta malahan. mar walba waxay sugaysaa in la suureeyo suurihii raadinee wixii loo qaban jiray rabtaa wixii wax loo sameyn jiray rabtaa. noloshaas haday weysan wax waa 12 maanta waxaa lagu jirayaa muran iyo khaylo al-ultimada hooyadeed iyo aabaheed inay u noqoto ayay noqonaysaa because qof kale oo hayn kara ma jirtaba. maxaa ku soo haray gabadha maxaa la yiraahdaa noloshaas kale ku soo kortay oo jacayl helin oo waxba arkin waxay raadinaysaa marka qof ayada jeclaado ama nolol siiyo ama nolol shoobeena iyo wixii laga soo dhaadhiciyaba ha ahaatee qofkaas waa qof wax raadinayo oo isdhahayo noloshii nolol ka fiican raadi laakiin noloshii nolol ka xun ay mar walba ku dhacaan. gabadhaas oo kale waxay guursanaysaa nimanka la yiraahdo inferior-ka ah. niman waxaa jiraan inferior oo nacam raadinayaan adiga meesha aad u jilacsan tahay. gabadha markuu baranayo wuxuu ku baranayaa waxa ay rabto waa infiltration of your life uu sameynaya nacam adiga waxaad ka samaysan tahay duntaadii uu raadina
cashuu ku geynaa shoobinuu kuu gadaa lacag yaruu ku siinaa waqtiyuu ku gelinaa xataa doon ku siinaynin wuxuu ku leeyahay saabax meeshaan aadne inta aan marno jikalac waxa waaye waa examination adigu baaritaan kugu wadaa qoftaan meeshay ka jilacsan tahay soo fiiri okay kadib wuxuu sameynayaa create conspiracy wax la yiraahdo ama confident nacam in uu gabadhaani kalsoonideeda ay helo wuxuu sameynaa saaxiibada maxay ku soo waxaan wicitaan badana hooyada maxaa dhacay waa iga ka ilaalinay miya dadkan ani iima ka ogol miya maxay see wax u jiraan qof yahay aniga gabadhi marka way fakaraysaa ilaa waa gabadhi nooshi gaabneed ku soo kortay waxa isleedahay qofkan waaba ku rabiyahaba wallahi billahi soo ii raba ma aragtay maalintii 15 jeer soo waca waa maxaa la dhahaa taxi message ina seexday markaan soo kaco subax wanaagsan taxi message aha ii soo dhacay gabadhi kalsoonideedu dhan u gacanta ku dhigaya dhakab dan wuxuu sameynayaa approval wax ah qofkaani in ay ogolaato wax walba uu asaga rabo iyada waa ogolaanaysa because mar hore ayuu maskaxdi ka degay waa la soo socdaa wuxuu sameynayaa misdirection iyo obstacle wax la yiraahdo in uu qofkaani marin habaabiyo oo nacam arrin muhiim maanta markaad inta is soo hor istaagtaan oo arrin muhiim aad ninkaaga kala hadal aad istiraado wuxuu ku leeyahay orbax cashada ii soo gurbaahiya aheese war arrinkaana maanta ka hadleena ayaamahan ma xanuunsanta horta dhakhtar ma u tagtay hadalkii oo toosan oo adiga iyo asaga idinkala dhaxeeyay wuxuu sameynayaa in uu hadalka hadal soo dul saaro su'aalaad weydiinay su'aalo ku weydiina dharkayga ma dhaqdo ku leeyahay war maanta arrinkaasi waxaasi xal ayuutooyinkaasi businessyadaasi afaarahaas aan soo arkay hiblaay ka soo maqlay saasa la sameynaa horta dharka ma ii dhaqday dharkayga inuu wasaqahay horta ma ogtahay waa ogahay waa dhaqayo gabadhana waxa waaye hadalka ugu su'aasha lagu dambe in ay kaaga jawaabtay jecesha waa dhaqay waa hagaaji oracasha ii soo gur lugtaana ay xanuunaysay kaala ii riix nacam su'aasha dhan iyo mawduuca ay ka hadlayso mawduucu dul saaraya because ma raba hadalkeeda inuu dhageysto mana rabi ma dhahaaya marka blame for others qalad kasta oo dhaco wuxuu ku leeyahay cidaasa noo keenta dhibkaas hooyadaha dhibkaas noo keenay aabaha noo keenay walaalkaha dhibkaas noo keenay wax kasta oo dhaco dariska ciidaha islaameed faamilkaaga uu leeyahay ayaga dhibka noo ka marnaba asaga inuu qaldan yahay ninkaasi ma qiranayo ilaa sheekadii banaanku gabadhan ku soo tijaabiyay meesha ka jilacsaneed Soomaan intaan kala guriga dhexdiisa marka ka dhaxaysa gabadha ma dareemaysa marka guurkeeda inuu isbedelayo wuxuu ka dhigaa markii dambe wuxuu sameynayaa inuu qiyaano inuu naag kale ka dul shukaansado islaanta dariska inuu inta la fariisto uu sheekeeyo dhaho walaahi qof yahay ani hada isku dayileen ka waran adiga soo maqlaa la baay astaghfirullah naagti dariska naagtaana sanka u taaga naagtaan inaan jaro waa ayada hilhilasho iyo waxay galaysaa iyo isxooji isdiyaarin ninka naagta yey ka qaadin ma ahan adiga ayuu qalbigaaga qalqal ku abuuraya mush inuu naagta dariska uu rabo hadduu rabane adiga mar horaad ka soo dhamaata ninkan in adeer soo marka wuxuu sameynayaa in uu adiga kugu abuuro daciifnimo iyo inaad liidato iyo in maxaa la yiraahdaa uu ka tagay adiga kalsoonidaada inay hoos u dhacdo marka uu bilaabaya wuxuu sameynayaa oo kaleeta meesha aad ku dhibayso ayuu mar walba ka taabanaa adiga saan ahaan jiray adiga kan ahaan jiray gabadhi kudse iskugu dhaheesa ayada dhanba waxaad arkaysaa gabadhii oo sanad la qabin oo tuur ka soo baxday subxaanaka yaa cadiim teeda kale wuxuu sameynayaa in uu dadka uu ku xanta ayada uu yiraahdo naagtayda waa sixirey haday rabto wax alla iyo wixii uu ka sheegi karo ayuu ka sheegayaa waa laga soo gudba hadal ay marayso Soomaa arintii kore u sii socotaa guurkaas waa guur halaabay wuxuu sameynaa markii dambe heblaay inaan ka haran rabtaa ha aniga waxa hadalka aan ku dhaho inaan sameeysaa wuxuu isku dayayaa qofkaas inuu asaga leeyahay
nacam shay mara ahuu asaga soo gatay inay iyada dhanba tahayba wax maxaa la yiraahdaa xanuuna iyo dareen qofkan ay ku hayso ma jirto waa lack of empathy ma baxanuunsanaay maanta hadaa dhahdo calooshii ay soo dhacdo dhakhtaraa buro iga soo sheegay waa la iqalay jikada inta kuu galo bakeeri shaaxa ma kuu soo karinaayo halkaas uu kuu furnaa bal adiguuba wax kaasii rabaaba wax xanuuna iyo sakaraad ah haddaad jiran tahay maxaad u jiran tahay xataa laguma dhahaayo waa isduuduubee marka arta naf isgeli maxaa naf ii shaydaan buu la diraa maxaa meel la taala hadalkaas kuugu jawaabaya ya irresponsible waaye waana self destruction wax uu mas'uul ka yahay meel gurigaas hadduu daaqilka albaabka ka soo galo oo wasaq meeshaas taalo ama cunug dheebar ka laalaado oo adiga waxaan ka hadlayaa dadka qurbaha jooga he doesn't care bal wuuba kuugu sii caynaa maanta dhan maxaa qabanaysa marka saan aad u taalid wasaqda naagta oo shaqadii ku badatay waay tan kaloo istaagto ayada cuqdadaa ku taagan midda kale qolkii nadiifinay daahiyay gogle fadhiga waa bedele wax walba way sameeyay ayada waa soo qubaysanay ilmaha waa uleynay waa xanaynay digtoono way iska dhigaysaa barafoonka iishida kan igu shub uu samee iishidido wixii oo dhan la isku qiiqina waxay taagan tahay aniga waan naag taagan oo jagjagahan ahay aniga naag taagan oo jagjagahan ahay that's not kalsooni habeen walba inaad uunsi qiiqa isku shido kalsooni ma ahan nadaafadu waa is nadaafadayn kartaa laakiin inaad inta ilmahaaga ulaysood xareysid oo cidihii dhan kala gagabisid oo albaabada xiratid oo qiiq shidatid oo duruc bedeshid oo maxaa gagabkaasoo dhan kugu wato maxaa raadinay waxa raadinaysa maxay tahay shaqsiga waa shaqsi adig kula mida why even maba ku sii respect gareeba qofka asaas ku sameeynaysa respecta dhanba maba lahanba naagta kalane caayaaba u sii dheerba ayada wax loo qabta iska daay waaba la sii ceenaaba okay maxaa la dhahaane wuxuu kaloo sameynayaa ninkaas oo aad ku garanaysaa oo ah ninkaas oo ninka xun ama guurkaagi meesha uu ku sii socdo nacam wuxuu isku dayayaa inuu asaga kaa horeeyo waa rag isla weyn waa rag adiga kaa faanayo waa rag maxaa la yiraahdaa ku yasaayo waa ragga aan familkoodaba qiimo la lahayn cidiisa haday soo wacdo xulaa ilma edab darana meesha lagu haayo edab daro ilma ma ahan waxa waa meesha uu istaago dadka kale ilmahooda iyo naagaha islaameed iyo waa la fiican yihiin laakiin naagtiisa lama fiicno ma bal fiicnaba ayada dhanba nacam wuxuu sameynayaa mar alla iyo markuu ku arko waxyaabo adiga oo ceeb ah kaftan heblaaya waxay ogtahay male wala qof yahay u sheeg gabraad saaxiibadiin dada daristihiin markuu arko war qoftaan waa iska noosha waxay ogtahay male ha video halkaas la soo dhigo maxay ka ogtahay la ilaaha qoftaan video weydiine war qoftaan adduunyo aakhir war uma haysee ile dadkii iska gadaa adigii ku bahdilaa ninkaas oo kaleeto because waxa waa moor oo adiga ku caayo moor oo adiga ceeb ka sheego asaga waxa waay qabow laabtiisa waxa barafa maraayo sooma because wuxuu feel gareena literally humiliation kaaga iyo maxaa la embarrassmentigaaga asaga waxay u tahay maxaa la dhahaa janno inuu ku jiro kaleeto dadku ogeysiina ina adiga qof xun tahay teeda kala gabadhaasi waxay dareemaysaa in ay asaga nacam cabsi nacam waxay dareemaysaa in ay nolosheeda ka hormariso noloshiisa cuntada tii macaani u diyaarinay ilmaha waa uleynay waa xareynay ayada dhan waa gagabe telefoonka silentiyo ku xirey gab ayada dhan waa isku dardarsamay waa qof cabsanaya markay asaga aragto waxa waa cabsi oo cabsi kala kama cabsanayday nacam waxay isleedahay ama kugu kacaaho qayliya teeda kale markay dadka kula joogaan haye dadkii u qoslaa u sheekeena adigana wuxuu kula naagtan gurigeyga ay soo galin gabadhi markuu banaanku arkay macaanta ma fiicanta ina adeer ma ku arkin maalmahan ma sha Allah ilmaha say ku yihiin adina wuxuu kula waxaan ku sheegaa naagtan gurigeyga ay soo galin asaga ma raba inuu wajiga iska xumeeyo laakiin ayadoo uu raba inuu wajiga ka jaro lambar 3 wuxuu ku leeyahay anaga dhibaatadan haysata waaba adigaba
gurigeena waxa dhibka ka haysta waa adiga waa kugu qaldame mustaqbalkaygaad ku ciyaartay waqtiyaad iga lumiday waa i qasaariday aniga saana ahay naftaad ii keentay ma hooyda ma hargalo ilaaha i ka daba dhigay waa dhibanahay yaa labadeena la arki doona qofka dhib ku dambeeyo aniga farxada ii dambeyn doonto hadal aan istaagaynin nacam ayadoo wuxuu ka dhigayaa qof waalan inaad adiga oo gurigan arintiisa waxay ka suurtageli laada waaba adiga haddana ta kale uu sameynaya waxay tahay inuu kontaroolo hooyada maxay ku soo waxay inaad jika ku jirto waa u jeedahay hooyada kaama naxaysa miya hooyada ku dhashay xitaa wuxuu ku leeyahay maxay ku soo waxay dariska muxuu ku soo wacay naagta maxay ku soo wacay ninkan markuu ku soo wacay adiga naaga tahay markuu ninku soo wacay muxuu yahay ninka ku soo wacay aaba shakiyaba baba furdug waxa waay sababtoo ah nina ku soo wacay because nin lama hadli kartid qofka business kala dhaxeeyo darisaatiin salaamu calaykum wacalaykum salaam asxaabatiin waa isla soo korteen xaafadaha wada deganaa jirteen jidka markoo kaaga hor imaado ma ignore garaynaya qofka noocaas waa qaraabadaada qoorta ka jar waayo lacagtaada sidoo kale lacagta waa ku tumataa naag tumataata lacagtaada waa baabi'isaa waxyaabahaasoo dhan waxa waaye wuxuu rabaa inuu adiga inta ku kontaroolo oo koombo kugu xiro haddana ninkaasoo kale marka uu raba inuu naagta maskaxda ka cuno dadkuu ka jaraa dadka markuu ka jaro naagta kaligeeday noqonay victim isolation la dhaha ninka markuu dadka dhan ka jaro wixii aad gabarnimadaada sameyn jirta ka jaro meeshaad aadi jirta ka jaro wixii aad fan ku ahaan jireen oo ka jaro hadda wixii xun kama hadlaynaya wixii fiican oo dhan inta ka jaro adiga koomba kugu soo rido just markaas wuxuu rabaa inuu madaxa gaw ka siiyo si aad adiga maskaxdaada u waalatid teeda kale lagu gartaa waxay tahay ninkaas wuxuu kuula barbar dhigaa wixii xun iyo adiga waa isleedihiin heblaayo aasaan sameeyay adiga maxaa dhaantaa anaa ku heeye maxaa dhaantaa heblaayo waa saan way cayishe adiga dhinacyada garbaa ku leedahay saan isaana la dhahay tan ii joogtaba waa saas afkiisa ama guriga ha ku joogo ama banaanka ha joogo wax markii laga hadlaayo marriage laga hadlaayo dumar laga hadlaayo inta xun adoo kugu maslinaya naagta ugu xun inaad tahay wax walba adigu kugu maslinaa heblaaya saan hadaa dhahdo adiga maxaa dhaantaa hadalku mudo oo maanta dhan hadallada Soomaalida maxay dhad hadalku miro iyo hadalku maro iyo hadalku mudo asaga kaliya wuxuu yaqaanaa hadalka ku mudaaya le maanta dhan hadal adiga oo cuqdin kugu noqonayo oo kugu taabanaa adiga iska ahayba gabar nolosheeda daciifnimo iskaga soo kortay daciifnimada kama wado qof xoolo haysanina ku soo koriyo iyo wax la'aana ku hayda kama wado qof farxad ba aan ku soo korin oo happy life ba aan ku soo korin haddana nin noocaas markay hesho gabdhaha badanaa waasho oo stresska ku dhaco way wadamadan qurbaha marka la joogo teeda kale gabadhaas waxaad ku garanaysaa in ay ka baqaysaba maalin waxaa arka meelaan joognay ninkeeda soo galay gabadhaas way istaagtay halkaas oo carta waa isbooboojeesa waana salaanyisa sharaf loo noo salaamay ayada laakiin out of comfort zone ahayd qof comfortable ah oo adiga ninkeedi soo gala inay kala dhacdo haye ama ay isla kaftamaan caadi noqdaan soo lagama rabin ma aysa sameyn way gabta gabadhaas garbasaarka isku dabool inta u leex ismashquuli maryahan fiirfiiri subhanaka ya cadiim qof marba hadaa ka baqaysid baqitaanka dil ma ahan baqitaanka waxa meeshaas ay fadhida kaliya hadhow markii guriga la tago ku caaynaayaan that is why baqdinta maskaxiyana loo dilooyaa qofkan maahanay jirkeeda cid taabanaya malaha jirkaagan horta hadii lagu dilo Soomaali maxay dhaheen kor la dilo koraa ka soo haro markii la yiraahdo la dhihi jirin kor la dilo koraa ka soo haro jug lagu dhuftay oo maxaa la wajiga ku madoobaaday ama gacan ka jabtay way soo kaban way kabanaysaa skin kan koro laga garaacay dhiig baa soo galaayo
iska shuuqaysaa dhibaato ma lahan laf haddii lagaa jabiyo waa kabsame ilig haddii lagaa tuuro iligaa soo gashanaysaa laakiin ogow Soomaaliye maskaxda haddii lagaa dilo maskaxda maaragtay haddii lagaa dilo never weligaa daawo ma helaysid because maskaxda lagaama daaweyn karo inta kale hadduu kuu geysto xoola hadduu kaa dhaco adoo dhar la haddii lagu soo diro adoo lagu jajabshay paralysis haddii lagaa dhigi xitaa ya still waa noolaan kartaa laakiin gabadha maskaxda laga dilay ma noolaan karto ever kama soo kabsanayso gabdha ma arkin miya 10 sano ka hor la furay oo still markaad la sheekaysatid filinkii iyo wixii ku dhici jira oo xabad kuugu sheegayso saanu sameyn jira still maskaxdeeda ma ka tirtirmin because mentally haddii lagu gabadhaasoo kalena horumar ma gaarto madluuna intay noqoto ee meel ku aruurto ee meel iska fadhida dadka waxay noqonaysaa aan mustaqbal iyo nolol aan samaysan karin because qalbigiya laga jabiyay maskaxdiina waxay aamintay maskaxda manduula mar walba hadii wax lagu soo celcelsho adiga ka waran ninka aad 5 sano ama 6 sano ama 10 sano aala noolay oo subax walba hadal ku duro galabta haduu ku qoslo caawa hadal qaldan ku dhaa bishan haduu farxad ku sii bisha dambe oo ku caayna adiga fluctuate wax la dhaha intuu ku sameeyo oo marna uu ku dilo marna ku noolee marna ku dilo mental si walba gabadhaasi banaanka markay u soo baxda ay afka cadaynayso guriga way ku dhex dhimatay gurigeeda wax nolola kuma haysato so if you have any question comment hoos iigu soo qora and live video ayaan sameyn doonaa insha Allah laakiin arrimahaas oo kaleeto waa waxa guurka baabiye marka ninka calaamadaha ugu horeeyay hadaad ka aragto intaadan guursanin ama inta ugu horeyso aad isqabtiin aad ka aragto inta aysan marxaladda labaad gaarin hadda tan inta waa marxaladda stepka koowaad oo guurka xumaaday waay stepka labaad waa jug stepka saddexaad waa geeri ma fahmay waa geeri taas lagama hadli karo taas tan labaad xitaa lagama hadli karo waa wax la qaada karin inkastoo Soomaalida ay ku yartaa naag la dilo oo ay ku yartaa wali aana indha ka qaadin dheglen ka maqla maahna naag la dilo ilka ma aanan qaadin nacam la garaac feer iyo waxaan sheegayaa haraanti maaha naakaw laga siiyay waa arkay idaacadaha meel walba la soo saaray laakiin naag oo jugta laga qasay oo sports amal lagu ciyaar wali ma arkin laakiin naagaha mentalka loo gumeystay 100% waa arkay naaga hadaan arkoon iska tartaraayo xumaantidii kuu sheegay haddana aanan ka bixi karin soo marka taasoo dhan maxay ka soo bilaabatay ma taqaanaa waaga yareed nolosha aad ku soo korto waay confident haday hooyada kalsooni ku soo gelisay oo habi ay kugu soo noolayn lahayd oo qof naftiisa jecel ay ka soo dhigi lahayd qofna adduunka kugu gumaysan karo laakiin hooyada haday ayadiga madaxa ka soo tuntay ee adigoo yar ay maxaa la dhahaa garaacis iyo qaylo ku soo bartay adiga dhan hayin ka soo dhigtay ku soo rabaayadaysay qof rabaayadaha noqon cid aad u tagtana waa u rabaayadeed sanaane sida hooyada ah oo kalena kuulama dhaqmaayaan rabaayad inaad tahay markay arkaan maskaxdii ka gumaysanay fiidiyowga xigana waxaan ka hadlaynaa caruurta marka ay dhashaan ilaa iyo gabadha markay weynaato ayaan ka hadlaynaa sidaad ula dhaqmaydo iyo sidii qofkaas isku bedeli doono iyo saddexda waalid fiidiyoyaashaasna waan soo wadaa insha Allah khayr baa idin rajeynaya ka faa'iideyso waa mahadsantihiin like and share kana ii saara thank you